maanta la yaabka waxa weeyaan waxa soo aragtay baan soo arkay buu sheegay aadba wixii aad aragtay mana naarkay buu taasaa la yaab iyaduna lahayd وهاجك داود يالك قلبته waxaan wada joognaa Axmed Cabdi Cismaan oo kamid ah odayaasha dhaqanka deegaanka Soomaaliyeed isla markaana kamid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed waxa 1976 ka baxay jaamacaddii La Foole waxa kale oo dugsiga sare ka dhameeyay magaalada Jigjiga 1969 waa aqoonyahan Soomaaliyeed ku nool xilligan magaalada Jigjiga waxaan uu kamid yahay dadka tirada yar ee aqoonta sida weyn Soomaalida u haya galabta waxaan rabnaa inaan ka wareysano sheekadii aad maqasheen Jigjiga ay meydkaaga sido oo qof ka soo Soomaaliya meeshuu joogo warkaasi ku tagay sheekadaas iyo qisada ku timid barnaamijkan ka wareysano dadku magac waxay maqleenun maxay Jigjiga meydkaaga sido waxa fiican wax walba marka hore in la helo waxay ku soo baxday wixii taariikhna weeye wacani taariikhdan waxay horta nimankan meydkaaga sida keenay laftoodu niman reer bari oo khatar ah ahayn niman aad u khatar ah waayeen Soomaalidan garanin nimanku niman reer Jigjigaada ma ahayn niman barina kaga yimid baahan marka arrintan meydkaaga Jigjiga sida waxay ku bilaabantay nimankaas hadal fiican khatar oo aan weligii go'ayn ku dhawaaqay arrintan waa arrin dhab ah arrin sheeka ma aha Jigjiga ka dhacday marka waqtiyadii ay dhacday 60meeyadii taariikhdii Ingiriiska waqtiyada 60meeyadii bay balay markii la sheegay si fiican la igu warramay marka waxay ahayd niman reer bari ah oo bari ka yimid ayaa meesha soo yimid magaalada Jigjiga yimid nimankaasi niman waxay ahayn dadkan qayilay jaadka aad u cunay ahaayeen iska qayilayeen habeenada kamid ah bay aad u marqaameen iyagoo aad u qayilaya oo si fiican isaga marqaamaya dadkuna aad bay baalka jaadka habeenkiina ayay u cunaan habeennimadii iyo qayilo marqaamaya ayaa habeen barkii markay ahayd habeenku markuu 3 meel 2 meelood ay tagtay meeli baaqi tahay waa ilaa 3dii habeennimo meel ayowga markay tahay mid kamid ah ay kaada qabatay baalkan jaadkaana marka la cudo dadku iska kaadi badan yahay oo kalba uu soo baxa wuxuu arkay nin meeydoo aqalka hortiisa loo dhigay ninkii argagax baa ku dhacay wuu yaabay wuu galay aqalkiibu ku noqday wuu iska fadhiistay ninkii saaxiibkii ahay la fadhiyay uu sheegay inuu ka aamusay shibbu ka yiri wuu iska qaylay ninkii ay saaxiibka hayeen baa baxay hadana oo dibadda u baxay ninkii baa isaguna arkay ninkii oo meesha yaala wuu yaabay wuu soo noqday ninkii argagaxsan baa yimid war maxaa dhacay buu maxaad aragto waa maxaa ku helanayo kii hore si arkay baa odhanayay kulka wuu yimid oo kii kale yiri waxaad adiguba aragtay baan arkay kolkaas ay hadaba aad ay arrintii labadoodii markay dhaxtan go'aan bay gaadheen niman adag bay ahaayeen horta raggu isku ma jiro in bay waryahay sidan meydkiina uu hor yaala waagiina wuu bari maxaa taloon yeela wax marka magaaladana meel masaajid u dhow xaafadda meesha ay waxaan ka dhacayna masaajid baa u dhawaa sida aan taariikh ahaan ku helay aan ku sheegay aan ku maqlay marka waxa dhacday inay tashadeen raggu talo umbu wax ku leeyahay uu tashadeen waxayna warseen yeela war ninka inoo soo qaad buu yiri inta labada dhinac qabteen baaqilkii soo waa la kanfay si fiican bay u kanfeen oo kanfantay marado iyo ku duubeen go'ad oo ay saayeen iyo ku duubeen kadib waagi markuu soo dilaacay uu mid baxay way tageen masaajidkii bay tageen war meeyna la siiyayna naxaskii way soo qaateen markuu dadkii soo yar baxay intii dadku soo tusisay magaalada soo yar baxday ayaa meydkii ay labadoodii midba dhinac u qabtay nin weey culaystan weey nin meeday wadaan oo laba nin kaliya wado way dib badan tahay nimankii oo dhibaataysan baa la arkay dadkii wadada socday baa dhinacyada qabsaday arrintaas arrin mucjiso ah ayay dadkii uu yaabeen labada nin kaliya waxta meydka wata maxay ahayd war waa dad malaa masaakiin oo aan qadacid lahayn bal mariyaan dhinacyada laga galo waa la qaaday midba ka qaado alla baa ka qaaday dhinacba midba dadkii baa batay aad baa wadadii baa hore loo sii socday meesha lagu aasayay Sheekh Shariif xabaasha la yiraahday waa iska midba kolba marka laga qabtay kadib ay cunyar u dhex socday iyo soo dusay labadoodiba dadkii way ka soo hareen labadoodiba way ka soo dhex baxeen dadkii hadday ka soo baxeenna waxay yidhaahdeen ninkan intii la idin qabsan lahaa nimayow meesha ma iskaga carartaan hore ka dhaqaaqeen Jigjiga way dhaqaaqdo meydkiisa u sii wada bay geysay macaan Sheekh Shariif bay eegeen oo cidba xabaalimo cid qodaysiyo cid goobtii joogtana lama hayo dhibaato weyn baa meesha ka dhacday war maxaynu yeelaa war meydkiyaynu u sidnay meydka yaa lahaa inuu sidnay yaa meydkan cidda la yahay inuu sidnay yahay waa la isweydiiyey war garan mayne
وربل ما ذيك مايا ورا ذيك مايا ورقي مايا لما هيو ورنا فدي ده هينو بالله بحباش horta ninkii sidii baa lagu aasoo nimankay kaga dhex fakadeen baa aasay sidiiba iyaguna ku tageen jigsigay meydkaaga sido halkaa nimanku halkay ka yidhahdeen taasay ahayd kadib waxaa tegey rag ka mid ah reer jigsigaadka jaadlahaa baa qaar tageen bari u kaxeen labadii nin oo halkii joogta ayay u tageenoo war jigsiga maxaa la lahaa bay yidhaahdeen ay weydiiyeen dee jigsiga waxaa la lahaa cid ninaan la aqoon meydan la aqoon baa la aastay cidaasatayna garan mayno dhibkaasaa ka dhacay meeshii sheekada horta sidaasay ahayd assalaamu calaykum